haddaynan helin caafimaad waxbarasho qorshe leh oo dawladdu qaran ahaan u hogaamiso waxa laga yaabaa in wax badan inaga baynahaan arrimaha ganacsiga gaarka ah iskuulada gaarka ah qofka gaar ufkada wax soo dhisaya aad iyo aad baynu soo dhaweynaa waayo caalamku wuxuu dhaqaale ku helaa uu horumar ku yahay waa hal abuurka shirkadaha madaxa bannaan iyo qofka madaxa bannaan fikiraya laakiin waa inay lu miisaanata inay dawlad isaga ilaalinaysaa dhinac socoto oo danta qaranka eegaysa tusaale muran iminka ka taagan iskuullada baraafitka ee jaamacadda wasaaradda tacliinta waxa weeye waxaan u aragnaa wasaaradaha dugsiyada gaarka loo leeyahay inay yihiin shirkad ganacsi oo dhaqaale ka samaysa tacliinta tayada kor ha u qaadaan jaamacaddooda ha wanaagsanaato dhaqaale badan ha geliyaan waxaan u aragnaa inay geli karaan oo uu gaari karo iskuulka baraafitka ah iyo jaamacadda gaarka loo leeyahay wiil qoyskoodu ama gabar qoyskoodu dhaqaale haysto ay bixin karaan iskuullada dalka ka jira ee gaarka loo leeyahay qaar baa ardaygu sanadkii $2,000 ku kaca waxa laga qaada 100 waa la sii wadaa $150 $160 waxa laga bixiyaa markay imanayaan xafladan oo kale $100 baa laga rabaa qaarkood sanadkana waxaan gaadhnay wixii khooris dibadda laga keenayo in la siiyo jaamacadaha dawladdu ay maamusho waayo jaamacadda baraafitka lacag badan dadka way ka qaadaa waana dawlad iyadoo isku filan dadka jaamacadaha ka bixinaya lacagta intaa leeg carruurtooda koora soo diri karaan iyagu marka waxaynu mas'uuliyaddeeda hormarinaynaa ka aan cidina u maqnayn kaasaanu ka diiday maanta dacwa ka socota maxay ahaa guurtida iyo baarlamaanka way joogaan dugsiyada baraafitka halkaas taagida jaamacadii oo dadka waa la kala soocay waa la kala takooray qaar baa la qaatay xaq baa loo dacwiyaan wuxuu dastuurku siinaya dastuurku wuxuu leeyahay dadka waa inaanay ka abuurmin dabaqad kaliya door oo dadka ka dheeraysa dastuurku wuxuu leeyahay dadka la isku celiyo haddii kala jiri mayno wadanteena taas baan weegaynaa duulimaad kuma nihin iskuulada baraafitka waa soo dhaweynaynaa inay koraan baanu doonaynaa dal kasta wuxuu leeyahay jaamacada baraafita ninka iska bixin karaya iska bixiyo oo waliba dee dhaqaaluhu doono u geliyo oo loo diideyn laakiin annaga maadaama nahay dawlad dhaqaaleedu yar yahay dee dadka intiisii badnayd waa in la qaadayo tacliinta bal waxaad ka warantaa wiilka aabihii yahay SNMT ee uu soo halgamay da taagay murtadada jira ee intaa iyo intaana furadka uu joogo ciidanka meel walba ka daafacay oo intaa soo jeer dhaawacmay indhahan aanooda xog arkeen talaabada ku adag tahay haddana waardiye ka qabta habeenkii inaad seexato bishii inta la siiyo waa taqaanay raashigiisa ma gaadho 7 carruur dhalaya u maqan miyana qaranka mas'uuliyadda saaran in wax la baro kuwa